geeyeen hostel ah meeshaan isaga jiray wiilkii markuu wuxuu bilaabay saaxiibkiisa mar walba inuu isoo waco igu dhaho see tahay waxaa u baahan tahay ma jirtaa xaaladaada intee ku maraysaa guri ma heshay maxaa kaa caawin karaa markani guri weli ma helin hostelkayaan deganay laakiin alxamdulilah wax iga halaysan ma lahan adigana waa mahadsan tahay hada sheekada waxay socotaaba cabaar kadib gurigaa la isiiyey guriyaan degay gurigii markaan degay wiilkii wuxuu igu dhahay maalin maalmaha ka mid ah inaan kula hadlaan rabaa oo aan kuu imaado wiilkii saaxiibka ninkaaga saaxiibkii ninkeyga hore saaxiibkiisa ii iman kartaan ku dhahay gurigeyga ayaa adreskeygan u diray kadib wuu ii imaaday ninkii markuu ii imaaday wuxuu igu dhahay runtii waan ogahay inaa igu baratay anoo ninkaaga hore saaxiibkiisa ah marna dumaashideyda ayaa ahayd haddana waxaan rabaa inaan kaa dhigo xaaskeyga oo aad noqotid xabiibtideyda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa raajicuun thank you Chego ilaa baan ku dhaariyay ninkaaga saaxiibkii ma guursan lahaydeen horta hablow ninkaaga saaxiibkii ama cadowgiisa aad ogtayna guursan lahaydeen no habluhu waxa ugu xunaysanay waxa ladna soo dhawaalo calaykum salaam ladan markaas wuxuu igu dhahay inaan ku guursadaa rabaa waxaa tahay qof wanaagsan waxaa tahay qof qiimo badan xas wanaagsan baa ahayd runtii gurigaaga markaa imaado xaqiiqatan waxaan ku ducaysan jiray inaad mid adiga kula mid ah aan helo yes bes wada qorayaan leeyahay ku dhufay masaaxiibka ma ninkii ku furay saaxiibka guursan leeyahay waa cadow isaga hadduu baxay maxaa loo guursan waay inaa lilaahi wa inaa waa guursan lahaa saaxiibkay ninkayga saaxiibkiisa hore waa qosolka ma guursadeen waa ooyinta imisa sidii hebel oo kala guursan lahaa ilaahow ay tusin kuwaas ku socon kadib waxaa dhacday ninkii inuu igu dhahay runtii markaa imaado gurigaaga aad baan u jeclaysan jiray siduu elegant u yahay carafta kasoo baxaysa sidaad adiga micnaha guri qurux badan cuntadaada say u qurux badan tahay u macaan badan tahay respectigaada ixtiraamkaada akhlaaqdaada runtii waxaad ahayd qof dhammaystiran waxaan ku ducaysan jiray inaad mid adiga kula mid ah aan helo laakiin ilaahaba haddii ka dhigay oo ninkii ilaahay calafkiisa aad noqotay kaa faa'iidaysan waayey ma rabi in qof kale uu ka faa'iidaysto anigaa rabo marka wanaagaaga xaguu ku arkay isagu wanaagayga gurigaygu imaan jiray saasuu ku arkay oo ku fiirsan jiray iyadoo lagu qabo ku fiirsan jiray maya xitaa meesha ayga joogaan xitaa ma imaan jirin asagaa keeni jiray xitaa cuntada wanaagaaga markaa muxuu ku ogaaday waay de wanaaga qofka baniaadanka ila arka maahan ma ogtahay gurigaa laga dareemi karaa qofka wanaagsan qofka kale teeda kale wuxuu ku dareemi karaa meesha ay ku sheekaysanahay inaan imaanin inaan hadal ku dirsanin codkayga la maqlin meesha aan soo fadhiisanin iyo guriga suu u diyaarsan yahay cuntada unbuu ka sheekeeyay isaga gabadhii ninkeeda haysan weydo loo hayna idinkana soo ma guursanaysan haysan waa isagana waa loo haynaa gabadhii ninkeeda haysan weydo waa loo labaynaa ku soco caawa way naga dhex tafantay annaga hablaha caawa is haysanaa caawa dagaal ay naga dhexeeyo ku soco dagaal waay caawa raggaaba lasoo safatay caawa dhiigga ay kacay ku soco markaasuu igu dhahay runtii waxaad ahayd qof akhlaaq badan oo gurigeeda aad u qurux badan gurigeeda carfa cuntadeeda lagaba dherginba macaankiisa anigana waxaan ku ducaysan jiray inaan qof adiga camal aan helo haddii saaxiibkayga fursadan uu garan waayey adiga ayaa aqaano marka waxaan rabaa fursad inaa isiisid waxaan rabaa inaan xaaskayga kaa dhigo waxaan rabaa inaan boqorad kaa dhigo waxaan rabaa inaan yaa cirka ku geeyo markaasaa waxaan ku dhahay runtiisoo lagama ficno shalay aniga adiga ninkaasaas keen baray saanay ahayd adiga asagana saaxiibaadtiin haddaan isguursano waxaa laga yaabaa inuu ku xanaaqo waxaa laga yaabaa inuu si kale ku arko ma naga deysid markaasuu igu dhahay aniga runtii marna lagama yaabo xaas la qabo inaan fiiriyo ama damac uu iga galo laakiin runtii gurigaaga cuntadaada qaabkeeda markaan arko waxaan isdhihi jiray ilaahayow mid saan camal isii haddii maanta aa madax bannaan tahay uu saaxiibkayga bannaankaas ku soo mariyey waa ii bannaan tahay hadduu ii xanaaqo asay u taallaa waxaana diyaar u ahay wax walbo inaa adiga dartaada aan u maro ninkii waxaan ku dhahay
waxaan ku dhahay waan kasoo fikirayaa fursad isii hay markaasuu wuxuu igu dhahay kasoo fikir waqti walba diyaar ayaan ku ahay hay anigii waan ka fikiray runtii in badanaan ka fikiray waxaan isdhahay ninkaan markii dambe waxaan isdhahay ninkaas asaab kugu faraxsaneen hadduu asaga aa kala tagteen ninkan hadduu ku wanaagsanaado maxaa kuu diidayo waa ogolaatay ninkii misadaan u diray waxaan ku dhahay welcome soo dhawow haddii aad noqotid midkii aan rabay alxamdulilah haddaa noqon weysidna meeshii saaxiibkaaga mare ayaa maraysaa ya haddaa noqotid kii aan rabay welcome haddii aad noqon weysidna meeshii saaxiibkaaga maray ayaa maraysaa sida shaarkan kala bedelaya camal wey sheekadaada markaa markaasaa waxaa dhacday ninka asaa i furi moogay markii horeba aniga waan rabay oo gurigayga inaan joogo marka waxaa dhacday ninkii inaan meesha xiriir aan ku bilaabnay xiriiraa bilaabanay runtii wuxuu ahaa nin oo dabeecad fiican leh nin xoogaa isagana wuxuu ahaa guri hore uu kasoo burburay oo dhibaato badan soo maray oo xaaskiisa aad u kululeedo cadaabaha lasoo jiirsiyo ahaa marka waxaa dhacday runtii ninkii inaan xiriir bilaabnay oo xiriirkii noo wanaagsanaaday wax yar adii 6 bilood markii aan sheekeysanaynay wuxuu igu dhahay waxaan rabaa inaan ku guursado waxaan ku dhahay welcome waalidiinteyda la hadal laalahayga la hadal aan isguursano ninkii guri ayaan raadsanay guri ayaan isla degnay waalidiinteyda ayaa la iga raadsaday waa la isiiyey waa isguursanay waxaan isku noqonay nin xaaskiis naag xaaskeed ma kadib guriga isla degnay alxamdulilah ninkii wuxuu noqday nin romantiga sidii aan rabay ama aan ku riyoon jiray iyo in ka badanba nin itusa muxuu kuu sameeyaa markaa wallaahi wuxuu ii sameeyaa markuu guriga imaanayo wuxuu ii keena horta flower oo maalin kasta adkaatay flower soo wada markuu albaabka ka soo gala soo dhoola cadaynayo weji furfuran farxad ay ka muuqato xiise ay ka muuqato ayuu ila imaanaya markaas xaq isiinaya kadibna ku qaadaya soo buuranta maya ma buurneen waa caataan ahaa waa la qaali karay intuu ku geynaya marka ku qaado kadibna slow kiss ya kadibna wixii aniga u diyaariyey farxadda ka muuqato reenreenta ka muuqato weji furnaanta ka muuqato jaceylka ka muuqdo hindhihiisa ayaa laga arki karaa dee kaali arag farxadda ninkii la sheegayaba kii hore maba aheene kanuu ahaa markaasaa noloshii aan ku fikiri jiray iyo in ka badanba oo kaali arag filmaan romantic ma daawataan oo macmacaan mase soo hordhigtaan saan u daawanin bisme markaan soo cashayno intaan bustayra qaadano daangeer aan samaysano qaxwo yar aan samaysano aan meesha isla fariisano muufi yar aan geysano nalka dhan liska damiyo yaa joobi degan markii hurdi isoo gasho kadib ayaan tagi jirnay qolka hurdada sidii maqaydin kadibna ninkii wuxuu noqday ninkii aan rabay wuxuu noqday nin romantic ah wuxuu noqday nin baari ah wuxuu noqday nin markaama adigu ma raab garaynaysaa saan u raab garaynay heesaha noocyada kala duwan haa isaguma mushxaradaya isagana muusikaduu garaaci jiray cabdiqaadiro weydii sidii qurqur sidii qurqur ma qaylinaya ya bismillah ya marka waxaa dhacday ninkii inuu noqday kii aan rabay ninkii wuxuu noqday kii aan rabay wuxuu noqday nin romantic ah nin baari ah oo
waalidiintayda ixtiraamo oo aniga ixtiraamo oo madaxa isaarta oo wax aan rabo wixii aan ku qanci karo mar walba isku day aniga markii hore anaa isku dayi jiray inaan qof qanciyo laakiin hadda waxaa la isku dayaa aniga in la qanciyo tusaale ahaan muxuu samaynayaa tusaale ahaan waqtiga uu imaan jiray xitaa hadduu daqiiqad ku darsanayo wuu isoo wacaya wuxuu ilaahay meeshaan baa jaam ku gala xabiibti waxaa laga yaabaa wax yar inaan soo daaho maalintuu rabo inuu meel aado wuu isoo wacaya wuxuu ilaahay maanta meeshaasaa aadaya maanta shaqadaa igu dheeraatay respect qof respect ku haayo oo kugu xisaabtamayo oo gurigiisa xiisa qabo oo aniga ii xiisa qabo inuu yahay ayuu i dareensiyaa mar walba maasha allah military am soo bolis bay ku leeyihin dadku military ahaa waxaan la faraxsan tahay waxaan la faraxsanahay waaba nin dhinac walba ka dhammaystiran bolis mu hayn military romantic ah oo ninkan nala saarana waa booliska caadiga ah ma booliska caadiga ma haysan annaga marka waxaa kuu soo hartay ninkii hore aniga i qabay inuu xoogaa asigii odaygayga hadda cusub waa isku dhaceen oo wuxuu dhahay gurigayga asaa iga dumiyey wuxuu dhahay naagteeda anoo qabo ayuu shukaansan jiray xoogaa fadeexad iyo ceeb buu intuu waalidiintayda wacay oo waalidiintiisa wacay buu xoogaa wuxuu noo geliyey wax anaga shaqo aanu ku lahayn oo wuxuu nagu dhahay naagtan waxay ahayd markii aniga la joogayba teeda kalena asaga wuxuu jeclaa naag kale sheekada waa soo kala dhaafay laakiin asaga naag kale ayuu jeclaa oo wuxuu asaga u faraxsanaan lahab waa taas waalidiintiisana waa tii ay aniga igu soo qasbeen markii asaga i guursanayo wuxuu ahaa nin lasoo qasbay ma ahayn nin ku faraxsan noloshaas isagana wuxuu jeclaa naag kale adiga kuma arki karinba anigaba ima arkaynin markaas naagti kale asaga markii cabaar la joogay wuu guursaday laakiin maxay ku noqotay nabsigii baa kasoo baxay oo cadaabaha la jiirsiyay isagana anigana waxaan helay kii ugu fiicnaa adduunka uguna nolosha fiicnaa sidaas ayaana weli ku noolahay waxaana leeyahay qofka asagoo cadaabta soo arkin haddii xaas wanaagsan ay ku soo aado ma fahmayo qiimaheeda iyo wanaageeda laakiin ninka cadaabta lasoo jiirsiiyey asagaa fahmi karo qiimaheeda qofka xaas fiican heestow xajiso xaaskaaga haddii kale waa lagu xajinaa aadiyaan cali farlow soo dhow booliska maad ka daysid ma cali farlow boolis caadiya cali farlow anigii ogaa habeenku soo qabsanayay booliskaas luufta ilaaliyo weeye wari cali ma jooge cabdiqaadir عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan hay gabadh subscribe tiyo shaashadana way dhowdeen caawa subscribe to caawa yartahay maxaa dhacayo share tuxtaa way yartahay caawa kun may gaadhin hal mar dhammaantiin sheegaray sida u dhantiin iidii walaalka waa mahadsantahay dhammaantiin sida u dhantiin sheegaraya sida u dhantiin amar dowla mudac ninkii diida dabaal caawa waxaan aqrinaa aad iyo aad hal mar dhammaantiin sheegaraya hal mar yaa ugu sheegarayay maahir baa ugu sheegarayay thank you maahir ayaan baa ku xigtay user baa ku xigay uu baa ku xigtay boqoradaa ku xigtay aaminaa ku xigtay kaariyaa ku xigay sagal baa ku xigtay khadra diriyaa ku xigtay cabdiraxmaan baa ku xigay farxiyaa ku xigtay amran baa ku xigtay ice baa ku xigay faadma sharaf maani naciimo igu waalo naadiya saahid axmed malabooyi nasiim salma degan boqorada shanta soomaaliyeed soomaaliya user faadma cabdilaahi naadiya mustafa sumaya nimco boqorada nasteexo muna shaafi waa waray sawda aasiya hooyo fiican umu cabdilaahi nasteexo cali plastic queen hana cabdallah qudbiya faadima waa waray kamila nasteexa maamu runey raqiya thank you muna good girl faadimo yaranka inoo bilow marka thank you dhammaantiin kun inoo gaarsiiya hal mar maryam thank you aragsan thank you maryam sagal thank you xamdi thank you aisha thank you nas thank you boqorada baashaalka thank you inoo wada ku soco faadmo ogaaso okay
aniga maraykanka deganaa inan baa isla sheekaysanay muddo badan baa wada sheekaysaninay adigu akhiiran jacaylkayga waa ishelay waa isguursanay guri baa wada degnay nolol waxaan ku noolnahay maasha allah tii aan is odhan karo waa ta ugu wanaagsan gabadha saaka ay ku nooshahay nolol aada u qurux badan nin aada u qurux badan guri aada u qurux badan anigoo aada u qurux badan maasha allah wax wada qurux badan wax wada qurux badan waa kow awlaad yararoo aada u qurux badanna waan dhalay maasha allah allah ku barakeeyo waxaa dhacday inaan muddo aan wada noolayn marka faamiligiisu isagu kanaday degan yihiin laakiin isaga keliya xaggan degan iyo aniga marka adigu muddo 2 caruuraan u dhalay waxaan kuri weligay iskumaanaan qaban dee wax yacni aan isku qabnay weli ma jirto weli iskamaanaan hor imaan dad aada isku jecella waa nahay war maasha allah dhaha intaana shakada kululaan maasha allah u dhaha marka waxaa dhacday inaa maaragtay anagoo sidii u wada nool nolosheedu maasha allah noo tahay isku faraxsan in hooyadii maad aragtay ay noo timaaday hooyadii baa timid haa ina soo booqatay oo doonaysa inay dee maaragtay carruurta aragto inkastoo ayna noo iman intii carruurtu dhalatay waxay tiri carruurtaan raba inaan soo eego inaan ayaama idinla soo joogaan rabaa hooyo soo dhowo baan idhi way noo timaaday odaygeegu marka ay imanaysay wax ku maqnaa shaqo ku maqnaa ani markaa shaqo ma lahayn anaa airboodka ka doonay waa soo kaxeeyey gurigaan keenay waa soo dhaweeyey maasha allah kaalida iska arag baa usoo dhaweey sidii hooyada oo kale maxaad u malaynaysaa inay dhacayaan hadda sheekadu adkaanaysaa maxaad u malaynaysaa soo qora qofka sii karta another level waa marka waxaa dhacday inaa maaragtay isna uu yimaaday hooyadii madaxa ka dhunkaday gamcaha ka dhunkaday lugaha ka dhunkaday anigu aan soo dhaweeyey hadday sheekadu sidii tahay ay muddo wiiga maamadii joogto oo dee maaragtay jiifka wax walba ugu geeyo xinaheeda yar madaxa loo yar mariyo gamcaha casarkii wuxuu yar xina yar u mariyo markaa maaragtay shaqada ka imaado caruurtii ayay heleen maasha allah aan sidaa ugu wada faraxsannahay aniga iyo odaygaygii iyo caruurtaydii wixiiba ayaa waxaan ku yidhi hooyadii maamadii sodoh xun bay noqonaysaa waa oohinta sodoh wanaagsan bay noqonaysaa waa qosolka sodoh wanaagsan bay noqonaysaa waa qosolka sodoh xun bay noqonaysaa kala dirta reerka waa oohinta ku soco marka maamadii adigu markii ay gurigii dee kala barbaratay suuqii aan geynay usoo shobi garaynay magaaladii soo kala tustusnay marba kii jaanis haya ayaa kaxeeya anigu odaygayga marba shaqo lahayn hawshii sidaa ku socotay waxay bilowday inay tiraahdo cunto markaa maaragtay dee isagiyo maaragtay iyadiyo wiilkeeda cuntada dee miis baa lagu wada cunaa marka miiska markaan cuntada soo dhigo waxay ku tiraahdaa wiilkeeda hooyo kan cuntada noocana miyaad cuntaa ha hooyo maxaa dhacay may cuntadaad cuni jirtay anaa kuusoo samaynaya cuntadaad jeclaan jirtay cuntada ma jeclaan jirin wiilkaygu cuntadan wiilkaygu yani iska cuni jiray mooyaane ma jeclayn cuntooyinka noocaasoo jecel yahay cuntooyinka noocaas hooyo markii waan yaraa hadeer waan weynaaday maaragtay tanba waan jeclahay may adigu hooyadii miiska cuntadayba ka bilowday hawshii marka maaragtay aroortii intay xilli hore kacdo markuuna shaqeey waxba jirin uusan maqnayn intay jikada gashay cunto yaro kale soo samaysaa tiraahdaa hooya kac cuntadaad ka heli jirtay baan kuu sameeyey aniga markaa dhibba uma arkay dee waa wiilkeediiyo waa runoo ilaa yaraantiisiiba garanaysaa dee cuntadii cuni jirayna si fiican ba u taqaanaa adigu waa iska wada quraacanaa caruurta inta kale baan usoo sameeyaa iyadu wiilkeeda unbay usoo samaysaayo tiraahdaa hooyo ka cuntadan cuni jirtay baan kuu keenay laakiin labadeeda wiila kale cuntaan usoo sameeya ayada waa usoo sameeya aduu xaafadoo dhan anigu u sameeya miiska waan soo dhigaa isagu tii hooyadii buu cunaa dhibaatana uma arka moogtahay tii hooyadii buu cunaa
maasha allah hooyada cuntada aad jeceshay bay kuu samaysaa waan ku yidhi laakiin iimaad sheegin inaan cuntooyinkan jeclahay adigu markuu sii baxay madaxuu iga dhunkada igu yidhahdaa waxaa ha u bixin adi haye waayahay halkii sidii aan ku joognay unbaa waxay tiri maalintii dambe way soo kacday adigu anoo qolkayga iska jooga oo wax iska daadaawanaya bay ii soo gashay waxay igu tiri saaka horta waa kuusoo sheeko dhaafay cabdiqaadir oowe cuntada markaan sameeyo ee wiilkeedu joogo waxay tiraahdaa cuntadan anigu kama helo xasaasiyad baan ku qabaa tan kale kama helo waayahay hooyo ii sheeg ii qor waxa ka heshid anaa kuu sameynaya si gaara kuugu sameynaya adigu markuu joogo dalabkeedu waa iska badan yahay markuu baxo marka joogo way fiican tahay ha iska dalab badnaatee waayeel baan kasoo qaaday maamo hooyaday oo kalaa baan kasoo qaaday waaba iska hooyadayba maadaama ninkayga dhashay aduu cunto wax kasta markaan u sameeyo wax kasta u qabto haddii doonto aan u diyaariyo mararka qaar qolkeedaan ugu geyn jiray marbaa jirta moogtahay lakala dareerayaan cid iskugu imanaysa miiska aysan jirin marka qolkaan ugu geeya hooyo waan degdegaya wakaas cuntadaadii wakaas haye maalinta dambe waxaa dhacday ayadoo jikada ku jirto quraac samaynaysa waxay igu tiri anaa quraacda samaynaya maadaan samaynaya ha okay qolkaygaan iska galay oo iska soo qubaystay oo iska soo diyaar garoobay qolkaygaan iska tegay ciyaalka iskuulka ku maqnaayeen xaggan baa iska fadhiistay film baa iska daawanay odaygaygi baa yimiday markuu odaygaygi yimiday unba igu tiri inta ii soo gashay hooy saaka quraac imaad samaynin waxna imaad diyaarin maxaa kugu dhacay odaygaagii jooga markaasuu igu yiri maxaa ku fadhiisiya meesha hooyo aan weli quraacan masaan ku yiri ayadaaba jikada ku jirto igu tiri anaa quraacaya waxay noo samaynaya ana quraac uma baahnayn marka dee quraacda way samaynaysa miyana intay samaynaysa aysan cuninba adigu way iska baxday okay iminkaan kuu samaynaya iminka uma baahna bay tiri quraacda xilliga quraacda way dhaaftay waayahay maalintii dambe anigiyo odagaygo qolka ku wada jirna oo maaragtay ayay igu tiri kaale quraacda ii soo samee ana waxaan ku yidhi waa xanuunsanaya ma kici kare quraacda iska samayso waan xanuunsanaya ma kici kare quraacda iska samayso jikadiida waa samaysan kartaa صدقتي هو إذا أحد بكسره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيا wiilkii baa kacay oo wiilkeedii baa kacay wuxuu yidhi ma xanuunsanaysaa buu igu yidhi haa baan ku yidhi okay buu yidhi anaa samaynaya quraacda uu baxay jikadu galay quraacdii buu sameeyey ayadiina miiska isaga iyo iyadu miiskay ku wada quraacdeen anna sariirtay igu keenay markaas marka maamada waan yar sanifay markaan arkay inay markuu wiilkeedu joogo waxyaalo khaldan ay ka hadlayso markuu maqan yahayna ay qof wanaagsan iska dhigaso kadib waxaan sameeyey markaan arkay inay xaaladdu sidaa tahay markuu maqan yahay waana na cadaabaaba gebigeedaba مسنانتي haa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو إذا عمل ملا حفاظة مليدين ها يا ميا مسنانتي العذاب السابع haa markuu maqan yahay maadaama markuu isagu joogo ay naftii igu dhibtay ana markuu maqan yahay baa nafta ku dhibaa hadda kadib aan go'aansaday inaan saa ku sameeyo أذكرت والله markuu joogo ayadaa nafta igu dhibtaa ana markuu maqan yahay baa nafta ku dhibaa maxaa ku samaysaa markaa de waxaan ku dhahdaa gurigu de qaybtaada wax ka qabo inankaaga soomaad odhan cuntadeedu jecel ahaa cuntaba uma samaynaya u samaysa inankaaga cunto ana labadeeda wiil baa u samaysanaya quraac markaad u baahan tahay samayso qada markaad u baahan tahay samayso wiilkaaga wuxuu baahaya u samee soo hawshaan oo lamaad imaanin dhammayso qolkaaga masaxo ka shaqayso adaa degan anigu kugu iman maayo dee waxaan ku yidhi qadaday u karisaa quraacday u samaysaa cashaday u samaysaa wiilkeega waxaan ku idhi anigu waaban didayba inaan farba dhaqaajiyo isaga markuu yimaadana waxaan ku dhahdaa waaban xanuunsanayaaba
waaba jiifsada bustan isku dada maalin oo dhan markuu maqan yahay maxaan ku idhahdaa anigu anaa kasoo horreyn jiray waqti yar baa anigu soo shaqeyn maadaama carruurtu maaragtay iskuulkan kasoo kaxaynayo saacado yar baa anigu shaqeeya gurigana anaa kaga soo horeeya ciyaalka yar baa cunto wax siisiiyaa jikadaba ma gale waxaan ku yidhi ciyaalkana kor baan u diraa guri qolkooda annakaygan galaa maxaad samaysatay ma idhaahdo maxaad qabsatay ma idhaahdo isaga cunto ma kariyo waxaan ku leedahay u karso wiilkaaga gabadhaas ma Fariid soo doqon intuu maqan yahay gabadhaas Fariid miyaa soo doqon qaar badan baa Fariid soo qoray leeyahay ku dhufay intuu maqan yahay oo dhan film baan iska daawadaa waxbaan iska daawadaa telefoonaa iskaga hadlaa markuu soo dhow yahayna bustahan geb isku siiyaa iyo barkinta kiniin iyo biyana waan isaga dhigaa moogta kiniin iyo biyana isaga dhigaa mar hore aan liqay camal kiniinka صدقني waxbay masaxaysaa gurigii ha masaxdo way masaxdaa mooyaane cuntada wax walba yadaa diyaarisa Soomaali oran wiilkaygu cuntada buu jeclaan jiray wiilkaygu sidan buu ahaan jiray muddo 2 bilood markay joogtay ayaa maanta dambe anoo amarkii intaan jikada kale quraac soo samaystay subax bay haydo intaan jikada kale quraac soo samaystay quraacdii anigu cunayo sida u fadhiya ayaa amarkii Ilaahay odagayga soo galay anoo miiska keligay fadhiya quraacdii cunaya markuu soo galay salaamu calaykum calaykum salaam fiicanta hayo markaasay soo boodiday markii hadalkiisii maqashay markaasay tiri hooyo maanta ma kicin waan xanuunsanayay maxaa wax iigu keeni weyday maxaa kiniin iigu keeni weyday maxaa quraac iigu keeni weyday aday ku leedahay markaa dee ma hadlinin saasaan u eegayo markaasuu yidhi hooyo maxaa dhacay hooyo meeda quraac siin se adiga haddar quraacanayo quraac soo samaystay maxaa ugu keeni weydo quraac markaasaan ku idhi daanigu inay quraacatay baan moodayay masay tiri wallaahi quraac ma cunin maanta dhan xilligana quraacdii wayba dhaaftay waan xanuunsanayay inay dee maaragtay ii timaado quraac ii keentay ahayd laakiin dhib ma laha iyadoo iska oohinaysaa haa dee siday isleedahay dee anumaba mateli karabe dhabarka isqabanaysayo mar waxaan ku yidhi waxaad moodaa in sakaraadkii hayo hooyo xalay miyaan seexday way hooyo xalay miyaan gama way hooyo casho ma sii cunin waxii keenay markaan waayadna shaqadaad joogtay way hooyadaasay haysaa waa ka quraacdii intuu xanaaqidee quraacdan cunayay gebigeediiba xagga ku tuuray qalalalalab wax dharbaaxaana iga soo jaray aniga kuli maxay dharbaaxaysaa aniga gurigaygan anaa iskale hooyadaa way dhib badan tahay way rafaad badan tahay way khaldan tahay dadkay isku dirtaa ma fahantay gurigayga ha iga baxdo haddadaan ha iga baxdo guriga mada dhahay haa guriga ma aydaa lahay damay guriga anaa lahay yadno keedii lagu qabay may aado maxay noo dhibasaa guriga ha ka baxdaa tiri islaantu haa markuu dharbaaxay baan qilqiliyaan kuri hooyadaa way dhib badan tahay way isku keentirasaa guriga ha nooga tagto gurigeedii ha aado inayna dhibtay noogu timi intaasoo sano miyaan weligaan isqabanay markaygu yiri masaasa haa in yar isug waan ka saarayaa guduhuu galay dharkii iska soo bixiyey warqad iyo qalin buu soo qaaday dalqadaydii wuu ku soo qoray warqadii buu ii dhibay igu yidhi gurigan adaa ku fudud haddanaaw iska bax walee waa rijaal legend soo qoray legend the legend is back baxde guriga ka baxday maca sonkor that's the legend war adiga maxaa kaa galay ku haya ninkana furay waad ku faraxsanta waa ka ifuraye warqadii la ii yeedhiyey markii la furay waxaa dhacday inaa maaragtay iyo guriga baxa waabanu qaadan waayo gab intaan idhiban
labada cagood wax ka day macal caruur ma xasuusan oo dhar ma xasuusan oo waxba ma xasuusan oo jaakad ma xasuusan oo furihii gaariga ma xasuusan sangadhay maqashii ku dacaska anigii waaba ordayba waban u qaadan ma waay hay guri baan tegay gabar saaxiibadaya leedahay waan soo kala degay maalin baan soo joogay habeenkii baan ku iri caruurteydii kama seexan karee guriga waan ku noqonayaa fiidkii baan gurigiis ka soo galay maxaa doonaysaa biigu yidhi ma gurigaas ka soo noqotay haa caruurtii baa joogta soo ma haddee a'uudu billah hay guri dhegayso maxaa rabtaa maxaan kaa caawiyaa hore ii banee baan ku iri meesha caruurteydaa ku noole hay meeshan caruurteydaa ku nool ma fahantay ii banee caruurteyda baan qaadanayaa qaado biigu yidhiyo caruurteyda baan haw la soo idhiyo markuu arkay horta inaan caruurtii qaadanaya biigu yidhi caruurta beri baad kaxaysanaysaa iminka iska wada jooga caruurtana iska daa marka waagu baryo waa dhaxan iminka caruurtana way hurdaa iska daa ma daynaya baan kuri mana seexanaya gurigaaga uma baahni adiga cajuusada ku dhashay gurigiina jooga hay adigu hawo baan soo idhiyo caruurtii baan dharkoodii alaabtoodii usoo guray boorsooyinkoodii baa usoo xirxiray wixii iga yaala gurigaan qaatay aniga caruurteedii waa baxnay guri baan tagnay gabadh saaxiibaday leedahay keligeed degan oo igu tiri aniga ii imow caruurta markaa soo kaxaysatid gurigii baan tagnay intaan guriga wax xarxaraysanayay shaqadaydii iyo waxaygii caruurtii iskuulkoodii adigu noloshaydii xoogay haddana wayse soo kabtayo ninkiina sidii baan ku kala tagnay laakiin nin aad u fiican buu ahaa xaqiiqatan waxaa dhacday nin kaloan shaqada iskala shaqeyna baan isla sheekaysanay ninkii baan dhac isku siiyey isla markiiba nabad nasanba maba nasanba dhowr bilood ma 3-4 bilood baaban ninka kalsii maqana waxaan isleeyahay kuba xumeeba ninka ku furay kuba xumee baan isleeyahay nin kale ama dhab isku siiyey ninkiibaa maaragtay nin dee waxaan ku nabsiba helay cadaabaha ijirsiya baa helay maxaa kugu samaynaya marka dee qofka bini'aadanka inaad iska ogaatid baa fiican anaan ogeyno xanaaqi furniinku igu jiro maamada xanaaqeedii igu jiro aan isleeyahay ninkan dee kuba xumeeba kuba dhafoortaabo oo ninkan aan la sheekaysanaya xataa ma ogi wuxuu yahay wuxuu qabtay ma ogi inaan meesha ka wada shaqeynin bes aan ogahay dabeecadiisa ma baran karo gabadh maqan baan ahay ninkii waan isguursanayna unbuu yidhi haye un baan idhiyo waaba isguursanayo waaba nin cabtooya hay ninka adigu markaan uu soo cabo marka kale waa caadi mar aliya markuu soo cabo unbuu waxaan ku iri alaabta jajabiyaa guriga jajabiyaa anigii alaab inaan alaab ahay anigu iyo inaan gurigii maaragtay alaabtii iyo inaan qof kala garan maayo anigii caruurtina kala garan maayo waxaan ku gowdu naga saaray ciyaalkii wiilasha yaraan baa aabahood wacayo aabo nin baa na dilaya aabo ninkii hooyo wuu dilay aabo ninkii hooyo sida buu ku sameeyey aabo na soo gaar aabo na badbaadi hay uu soo orday labadii wiil bay ka kaxaystay wuxuu yidhi dhegayso horta noloshaada soo maaree markaas caruurta haysanaysaa hay ninkii markaan ku yidhi furna telefoonka wuu iga xidhay wuu iga tegey telefoonkii markuu xidhay uu tegey telefoonkii wiiga dhan uu xidhnaa shaqadii uusan imaanin ayaa waxaa dhacday caruurteydii soo doontay waxaan ku ninkaasi uu tegey igumana soo noqonayo ciyaalkeygana waan haysanaya nolosheedina waan sii wadanaya hay waayahay biigu yidhi iska soo kaxaystee gurigeyga halkii sidii baan iskaga joogay adigu ninku habeenkii dambe noo soo ileen furusi taayay habeenkii dambe intuu soo cabay sidii noogu soo dhacay uu soo cabay khamri wuu soo cabay haa wiigaga dhan buu naga maqnaa deetana habeenkii dambuu habeen badh noo soo dhacayo markaasuu aniga gawda iga saaray aad buu ii dilay habeenkaas ninkayga horaan wacay ii soo carar ninkii waa noo soo dhacay uuna dili rabaa soo ninka nafsiga ka gashay ya haa isaga wacanaysaa iyo badbaadi haa
inuu dee naga badbaadiyo ninkan wuxuu samaynayo. hee dalac ku badbaadis ninkii baa noo soo cararayoo caruurtii buu halkan gaariga ku ritayo markaasuu isagiina wuu naga soo saarayo war naagtan iga saar buu yidhi iga saar naagtan maba arki kare war gurigayga anaa iskale baan idhiye orod naga baxo naga tag mise booliskan kuu wacnaa adigu gurigii markuu ka dhex bixi waaye yidhi wallaahi waan dilayaa iyo bilaahi tolla ilaa aan dilanaan caawa ka tegin buu igu yidhi adigu haddabayna mari gurigayga waa laga soo saaray gurigayga waa laga soo saaray gurigii waxaan imaanay odaygii hore guriga odaygii hore markaan imaanay wuxuu igu yidhi gurigan maaragtay gurigan iska jooga intaad guri kale ka helasaan gurigaasna iskaga soo guur adareyskaaga kasoo bedelo ninkaasi maaragtay waxbuu ku yeelayaa anigu saasaan kugula talin lahaa anigu halkan aan iska ooyay ninka lagu qabsada iska kay cafi nabsiga hooyadaa bay hayaa nabsigaagii bay hayaa hooyadaa way dhibaataysi laakiin hooyo umaan arag gabadh sidii maaragtay gabadh yar ileeg baan la ficiltamay iska kay cafi anigu waxba kuma qabo bay guuri carruurteeda hooyadeed baan tahay adigu ninkii baan aakhirkii iska soo furay markaa ninkii dee isfahmi weynay dee feer iyo laad noloshiiba hagaagi weyday degi weyday amarka ilaahay ninka nin wanaagsan buu ahaayo carruurteeda dhalayo guribuu noo soo kareeyey adareyskii baa soo qaaday soo bedelanay guri kalean iska degnay oo aan isagana wax badan kasii fogeyn waxaa dhacday markaa inuu meel walba la maray meel walba wuxuu la maray naagta ninkii baa iga qaaday hore mana furin igamana qaadina waa beentiise anigu markuu soo furay kaasi ninkayga hore waa u imaaday lugahan qabsaday waxaan kuri igu noqo wuxuu igu lagama yaabo inaan kugu noqdo ninkii hore lagu haysataa oo maxaa marka hore u kibraysay dee islaantaasana soo dhex gashay adigu saan lugaha u haystay sanad dhan ban cabdiqaadir oo beriyey igu noqo gabadhaan ku noqon lahayd ragow yaa sanad dhan aad beryotamaysaa marka sanad baan habeen iyo maalinba beriyey markuu iga soo horbaxaaba markuu carruurta soo eegaba markuu carruurta saa u soo eego unbaan ciyaalka dhahaa orda haddaba gudaha gala oo gurigiina gala wax iska ciyaara amba wax iska akhrista oo labada lugood baan dhib ku dhagaa adigu sanadkaa dhan siduu ii diidayey adigu maalinba maalinta ka dambeysa aan iskaga samray aan siri ninka fiican heli maysid habluhu haaba iska soo wada qorayaan ragguna may bay leeyihin habluhu idin kale kama weydiinba waa ragga wey raggunba waxna ku noqon kara waxna diidi kara idinka maaha sorry waan ka xumahay ragga oo keliya wey may bay dheheen raggu leedinku dhufay ku soco haabay dhex raacinayaan ka war inaan iyaga weydiiyo sidaan iyaga weydiiyo camal yaa in laydinku noqdo jeclida ugaas mudda ku jirtaa maylay maqlaa iminka telefoon bay soo galay adigu cabdiqaadirow sanad sidaan u baryayey aan ku lahaa igu noqo uu ii diidayey haw baan idhiyo ciyaalka fasax bay galeenoo kanadaan tegi maamada gurigeedii baa albaabka ku qarqaraac maamadii baa u tegi lugahaan qabsaday hooyo iga raali noqo hooyo waan qaldamay hooyo nabsigaagii baa helay hooyo qof xun baan noqday hooyo waan silcay hooyo waan balanbalay islaantii aad cadaabi jirta lagu haysataa ayaan lugaheeda qabsaday markuu isagii diiday oysa samadaad ka qeynaysaa samada ooyaya mooyaane sanadkaa dhan xataa cunto intaan dhadhamiyo ii dhadhanto intaan cuno garan maayo hurdo fiican aan seexda garan maayo waan balanbalay waan bacay hooyadii baa inamadii walaalihii hooyo gabadha maxay kugu samaysay maxaa dhacay hooyo maxaa dhacay gabdhihii xaafadii saasaa loo wada yaabay anigii baa sheegayaa hooyo maaragtay waxaasan ku sameeyey markii guriga inoogu timi hooyo si fiican ulama hadlin si fiican ulama dhaqamin adigu saan u ooyey waxay igu tiri dhegeyso hooyo haddaaba dee aad garatay
maaragtay qaladkaagii horta anigu waan ku cafiyey hooyaanahay meel lama kala tegino caruurtaydii aan ayada waxay hooyadood baa tahay wiilkay ku dhalay maxaan kuu qabtaa iminka maxaan kuu sameeyaa aniga wiilkaaga isku kaayo celi hooyo oo iraac oo maanta gurigaas dundumay hooyo macaani dib iigu dhis nafsigaagii bay helay isaga nafsigiisa bay helay dhibaatooyin badan baan soo maray maaragtay ma noolaan karo wiilkaaga la-aanti waay habay tiri maamadii waan isa soo raacnay gurigiisii baa imaanay afka iskaga soo shubnay waxay ku tiri hooyaan kuu duceeye maanta gabadhaas astur way iskaratay waa maaragtay gabadh fiican weeye maadaama iskaratay nafsigii baa helay way iraali gelisay anigu qudhaydu hooyaanahay iyada qudhaydu waa hooyo caruur bay inoo haysaa meelna kala tegi mayno maadaamaadan maanta aadan maaragtay naag kalena aadan maaragtay weli aadan guursan hooy macaan wuxuu guri gabadh yar baa ii doonano 17 jira gabadh yaroo 17 jira baa ii doonan buu yidhi oo shilis markaasuu bislaatay waata tiri yaa gabadh yaroo 17 jir ahaa oo xaggee joogta Afrika joogta tigir baa ii go-an waan tegayaa waniga ku ilaahumay 3 gabdhood oo min 15 iyo 16 iyo 17 kuu doonanaadaan aniga ninkaygi noqo igu noqo waa ogashahay taa gabadha kale waa ogolahay macalaash 3 kale acuudu billaahi min ashaydaani rajiim anu markaa waxaan aaminay nimaan isaga ahayn inuusan ninkayga noqon karin nimaan isaga ahayn inaanan fahmi karin nin baan hal mar guursaday cadaabuhu soo jirsiiyey ninka kaliya markasta iga badbaadinayay ee markasta ii soo cararayay aan xumaatadii hooyadii ku sameeyey iyo xumaatada isaga ku sameeyey midna maaragtay aan ii eegin buu ahaa militarina ahaa ha ku sheegin commandos lagama sheekayn karo nooca dalaadaha ku booda inaa lilah waxaan ku yiri 3 kale xataa hadday kuu doonanaya anigu diyaar baan ahay you are ready always aad iyo aad hooyadii waxay igu tiri guriga tag anaa arrintaa kasoo dhammaynaya waxaan ku yiri ha u doonanaato amba ha iska dayso aniga laakiin ninkayga hooyo macaani maanta ii soo celi waay habay igu tiri gurigaygii baan iska tegey hooyadii waa lasoo hadashay way kasoo dhammaysay way ii timi waxay igu tiri maanta hawsha oo dhan waa soo dhameeyey waanad isku noqonaysiin wuuna isoo ogolaaday waay baan ku idhaahday waan farxay wallaahi saa u farxay adigu meherkii baa dhacay meherkii hadduu dhacay ayaa wuxuu igu yidhi gurigaasaa deganaanaysaa gurigaygan aniga keligay baa deganaanaya gurigaagaas aad imikaba degan tahay deganow annakaygaan deganaanaya imaanaysidba iima imanaysid acuudu billaahi min ashaytaan what a legend baa ku helay wuxuu rabaa inuu cadaabta caadi kuu jirsiiyo ma ogolaatay marka anigu markaas maadaama aan isku noqonnay hadduu xataa igu yidhaahdo aniga ma jirto raalli baan ka ah muhiimaddu horta may qabaa weeyaan ma igu noqday qaniyi ma jirta hadda ku dhaho okay haa muhiimaddu inuu maaragtay igu noqdo weeyaan koobaad waxa kale tartiib inay imaanayaan anaaba og shaqid tartiib hablo ma ogolaan laydin ninka ku guursanay kulaa gurigayga maba imaan kartid ba gurigaaga iska joog waa kuu soo safra le ama waa soo yar safre ma ogolaan laydin la idinku dhufay bay soo wada qoreen maasha allah tabaaraka allah maxaa hablo raaliyaad jooga meesha tabaaraka allah waa ogolaan lahaa waa oohinta ma ogolaadeen waa qosolka ma ogolaadeen may waa qosolka waa oohinta waxaa dhacday inaa maaragtay aan ku iri ma intaasoo keliya haa marxaba waan ogolahay
aduu ninkayga hal mar ma noqotay haa waan ogolahay wiiga dhan cabdiqaadir wuxuu iga yimaada axadda oo keliya only Sunday haa maalin fasax maalinta fasaxa ayuu ii yimaadaa welibana guriga ma seexda harka cad bay imaataa maalintaasuu yimaadaa aroortii wuu ii yimaadaa ilaa iyo maqribada ayuu nala joogaa intaas carruurta la ciyaaraa guriga joogaa nala qadeeyaa nala quraacdaa bacdal maqrib uu naga tagaa ad markaa waad faraxsantay weli anigu kow waxaan ku faraxsanahay inuu mar labaad ninkayga noqday laakiin xoogay nolosha way igu yar adkaatay waxaan leeyahay iminka waxaan meendhahaaga mise madan kale uu leeyahay marmar waxaan isku maaweeliyaa aan isdhahdaa malaha uu ku yar maaragtay uu ku yar ciqaabayaa oo ciqaab bay ku tahay waa itixaanka maad aragtay bal ha ku dhicine iska aamus markuu 2 bilood sidii nagu waday ayaa maalinta dambe waxaan ku iri tigirkii kuu go-onaaye aad Afrika gabadhii ma mehersatay haa waan mehersaday gabadhii oo ma ku arag meelahaas miyaanan hambaliyo wax lagu soo dhigay may gabadhi waa wadaad hambaliyo waxaas iyada diiday anigu waan rabayba in hambaliyo la soo dhigo oo waad ka wareysanaysaa haa masaas ahaa okay anigu markaa wuu iga dhaadhiciyo already waan qaatay waayahay anigu markaa meeye tigirkii kuu go-naana waa shaqada xoogay waxbaa ka yarsi noqdayoo markaa tigirkii dib baanu dhigtay aduu 2 bilood kadib baan tegayaa waayahay waxaan ku iri anoo noloshii igu adkaatay oo 2 bilood xaaladii halkii maraso oo bil dambe iigu biirtay oo aan halkii dee shib afka juuqda gabeenska noqday oo aan xallaynin intaa kadib waxba maan weydiin 3 bilood ii dhamaatay 3daa bilood maalinta axadda bisana loo yimaadaa maqribkana laka taga 3daa bilood hal habeen xataa guriga ma uusan seexan xataa waxaan ku niri kaagaan kuu nimaadna sabtidii xataan kula seexana may buu yidhi ha ku sheegin maxaad tiri sabtidii xadda xabiib aan kula seexano haa waad baryootamaysaa ilaa waa ninkaagii haa uu ku diiday maalin kasta oo xada oo himbiya muruga ii tahay sidaan ku dartay maxaa ka wadaa maxaad maaragtay xataa ka shakiye inuu maaragtay guriga naag kale uu keensaday oo isagan oo shaqada ku maqan ilaa furaan haystaaye tegi oo cidina ma joogto anigu xaaladii yaaban ay 3 bilood ii dhamaatay bishii 4aad markaa aan galay ayaa maalin maalmaha kamid ah intuu ila soo hadlay wuxuu yiri dhageyso adiga iyo 2 yar ciyaala iyo adigu istiyaariya meel baan taganaa meel xagee ana meel baan taganaa meel baan ka soo wada cashaynana istiyaariya waan farxay waxaan sidee maanta noloshiina hore malaha soo noqotayo waayahayo waan istiyaarinayo koofeer baan tagay sideen soo labistay ilaa koofeer baan tagay make up xinna oo wax kasta oo waan soo diyaariyay maalmaha kale isma diyaarin jirin miyaa maalmaha kale soo tan ciidamana lama joogtay maxamed shayda baan isku diyaariyaa waxaan sameynay uu noo yimaaday isagoo labisan isagoo qodhiisu admadino aroos u socdo gaarigii buu noo keenay waan raacanay ilama hadlayo weji xumada juuqla kulama hadlayo ilama hadlayo ad ma la hadlaysaa markaa anigu intaa kadib 2 bishii u dambeysay waan quustay xaaladdu halkay maraso marka arkay يعني أما يكون في عندنا هذا نيكن كنا قناة نلاش هذا سكواتي أما يكون في عند بحد سلاية وحان تجنجوري وروح ذا يا علاب تتعلى يصير أي تهاي أدياب الصو وسيدي لو دياري أصل ذا عاوة وحكوسو أقل كلية
gurigan gabadh yar iyo wiil yaroo 20 jir iyo 15 jir ah Haya. anoo naxsan wadnu wuxuu leeyahay saasaan u gargariirayaa waxaan leeyahay maxaa talo jira maxaa soo bixi doona maxaa su'aalo badan baa maskaxdaydu saa isku weydiinaysaa su'aalo fara badan baa saa isku weydiinaya Haya. guriga qof dhaqaaqa ma jooga kama sanqarayo Haya. gurigii baan soo galay caruurtii miis halkan ayuu nooc cunto ay taalo ayaa maaragtay aan fadhiisanay wiil halkan fadhiista gurigan yaa degan adaa ogaan doona cidda degan iska fadhiiso marka asxaabay guriga yaa degan baad isleedihiin gurigaas yaa sidaa u diyaariyay baad isleedihiin gurigaas muxuu noqon doonaa bal car ii soo qora oo garta Ana guriga adiga lagu talagalan maaya. Another wife is wada qoraya. Another wife. Naagtiisi waa adiga way gabadha adiga iyada loo diyaariyay 17 jir baa degan for you gabiya oo balaay shay waa adiga waa qosolka gabadh kale loo diyaariyay oo inta adaa lagu diyaariyay waa qosolka gabadh kale loo diyaariyay waa inta u socda bal asxaabe adaa lagu diyaariyay waa qosolka gabadh kale loo diyaariyay oo inta qaar baa jin baa soo qoray qaar baa jin soo qoray jin cabdiqaadir gurigaas inta bahalkeega la soo qaaday marka cuntadii aan cunay de ma cunta ilaahay kaaga dhigayaa ii dhadhami mayso waxaan say tolo manaagdi 17 jirkeed balka kaaga soo bixi doonto oran doonta anaa diyaariyay cuntadii ma cunteen haa ban iskale ilaah ma ku dhaartay waxa dhadhamise garan maayo ayaa bahal keega la soo qaaday la wiil soo dhawo xabiibi cabdiqaadir caqli miran baa taa markii ugu horeysay waxaa tiri adiga asxaabtina way garteen maasha allah soo dhawo baa lagu yiri imtixaankan ku imtixaamayay 3 bilood waan ka raali gelinayaa ma ahayn nacay baan ku qabo ma ahayn xumaanan ku xumaynayo hadaan ku imtixaamayay waxaan rabay bal inaad imtixaanka ka soo bixi karto inaad hor cararto sidii wax waalin baneegay waanad ku mahadsan tahay caawa waxaan diyaar u ahay 3 bilood wixii kaa tagay hataa inaan dib kuugu soo celiyo macaaniyadii tagtay haa uu kaydiyey oo maxaan ku idhaahdaa aan hal habeen kaaga dhigo yaa iska garo hay adkaatay waan ku raali gelinayaa buu yidhi soo dhawow gurigaaga cusub waa kan noloshaada cusub waa tan raali baan ka ahay adduunkan kuugu jeclahay imtixaankaas aad maraysay in ka badan anaa marayay habeen walba is odhanayay amaad maaragtay weydaa intaad imtixaamisid amaa weydaa habeen kasta is odhanayay marka qurux badanee soo dhawow waxaan ku iri halkaasaa noloshii kasii socotay halkaasaa waxaan ku iri dayntii oo dhan waxaan ku iri dee halkii ku gudnay alxamdulilah maanta halkii waan ku wada noolnahay 2 caruur oo dan baa noo dhalatay wiil iyo gabadha iyo 2dii hore 4 baan saa ku haysanaa gabadhaasi dee gabadh fiican ma ahayd aniga kulley waan ku haystaa gabadhaas maasha